بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada saaxiibayaal dhamaantiin maanta waxaynu qaadanaynaa insha Allah 10 labaad oo ka hadlayay forex trading casharkii kan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay waxa uu yahay forex sida looga shaqeysto forex iyo qaabka aad ku gal lahayd iyo waxyaalihii qof walba u baahan yahay si uu u bilowdo isagoo kaligiisa oo aan cidna u daba fadhiisan ugana shaqeysan lahaa suuqan ganacsiga xorta ah ee forex sidoo kale waxaan soo qaadanay dadka ama cidda suuqan lacagteeda gelisa ee ka faa'iido ee maalin kasta faa'iido u soo doonata okay haddaba maanta waxaanu gelaynaa si aynu hore ugu sii socono casharkeena labaad waxyaabo muhiim u ah inta aadan suuqan dhex gelin ama aadan lacag gelin ama aadan analyze ama suuqii technical analyze ki aadan bilaabin waxyaalo muhiim ay tahay laga maarmaan ay tahay inaad barato okay waxa ugu horeeya waxa weeye website-ka loo yaqaano TradingView waa website-kan aan anigu hadda ku dhex jiro waa website-kan aan ku dhex jiro waa website-ka laga analyze gareeyo suuqa waa website-ka laga analyze gareeyo suuqa waxa weeye waa website-ka aad arkaysaan wuxuu ku sheegayaa suuqii hadda ma wuxuu ku socdaa buy hadda ma wuxuu ku socdaa sell sidoo kale waxa ka ogaan kartaa website-kan mustaqbalka suuqu ma wuxuu aadi doonaa buy mise wuxuu aadi doonaa sell waa website muhiim ay tahay qof walba inuu barto iskana diiwaan geliyo google-ka waxa ku qoraysaa tradingview.com ka bacdi sign up baa oranaysaa account baa ka furanaysaa ka bacdi chat-ka baa ku analyze garanaysaa suuqa chat-ka baad ku analyze garanaysaa suuqa sidaasuna u yaalaa sida shaashadeeda hadda u jeedaan sidaas buu u yaalaa chat-ku suuqiina waa waxaas waa candlesticks-ka casaanka marna cagaarka kor iyo hoos aadaya that's the market waa ka forex-ka lagu sheegaya marka TradingView wuxuu ka caawinayaa simply adiga oo gurigaaga jooga inaad website-ka dhexdiisa forex-ki aad ku analyze gareyso beer walbana aad ogaato ma sell buu aadaya mise buy buu aadaya okay waxa inoo ku xiga waxa weeye candlesticks waa maxay candlesticks waxa weeye shamacyada aad u jeedaan oo qaybina ay blue-ga tahay qaybina ay cagaarka tahay qaybina ay casaanka tahay weeye shamacyadaas baa waxa la dhahaa candlesticks okay casaanku wuxuu sameysmayaa suuqu markuu sell aadayo wuxuuna aadayaa hoos waa candlesticks ka casaanka kuwa bayga ana waa candlada cagaarka markastoo candle cagaar ku sameysmo that means suuqaas waxa weeye wuxuu ku socdaa buy hadii uu candle casaan ku sameysmana suuqu hoos buu aadaya wuxuu ku socdaa buy hadda suuqu halkaas uu maraya wuxuu ku socdaa buy sababtu maxay tahay waxa inoo sameysmay candle cagaaraba inoo sameysmay candlesticks kuna waa maxay waa shamacyada cagaarka iyo casaanka ah ee suuqa inoo sheegaya okay qodobka labaad waa buy iyo sell iyaguna maxay yihiin buy waxa weeye marka uu marketku aado up aado sellna waxa weeye marka uu marketki aado down aado hadda marketkaas meesha uu marayo hadda waa maxay buy buu ku socdaa oo suuqi up buu aaday waxay noo sameysmay candlesticks cagaar ah markana suuqi meesha uu markii hore ka soo daadegay hoosta uu ka soo kacay buy buu aaday soo daadagiisii baygan hadda ka horeeyay eeg suuqu muxuu ku socdaa sell buu ku socdaa maxay noo sameysmay candle casaana buy iyo sell kuna waxa weeye suuqu markuu up aadayo iyo marka uu down aadayo weeye okay qodobka inoogu xiga muxuu yahay bibisku maxay yihiin marka bibisku waxa weeye for example suuqa hadda meesha uu bayda ka aaday eeg soo dhaweey suuqu marka meesha uu bayda ka aaday waa candle-kan cagaarka ee weyn Soomaha ugu hooseeya candle-ka cagaarka ilaa meesha u sareysa inta suuqu biib uu dhaqaaqay baa la oranaya waxaan lagu cabiraa mastaradaas bidixda calaamadan fallaarta meesha ka hooseysa mastarada u jeedid waan soo qaadanayaa waan soo qaatay waxaan saarayaa meesha suuqu ka dhaqaaqay ilaa meesha uu gaaray hoostaan ka saarayaa waxaan geynayaa ilaa meesha u sareysa oo suuqu ii gaaray halkaas uu ii gaaray for example suuqaasi wuxuu ii dhaqaaqay 321 biib buu ii dhaqaaqay 321 biib buu ii dhaqaaqay intaan bracketka ku jirta 2.98% qaybta midigta ka xigta weeye biibisku ay ku qoran tahay 321 suuqaasi wuxuu ii dhaqaaqay 321 biib
oo bay abu ii dhaqaaqay. Okay, biibisku faa'iidada uu noo leeyahay maxay tahay? biibisku faa'iidada noo leeyahay waxa weeye suuqa lacagta aan wuxuu inoo sheegayaa suuqa inta aan ka faa'iideyno. haddii suuqaas meesha uu cagaarka uga soo dhaqaaqay aad ka geli lahayd 320 biibna aad suuqa ka faa'iidi lahayd intaas oo dhan aad bay ula socon lahayd, micnaheedu waxa weeye haddii aad $1 ku gashay suuqa, haddii aad $1 ku gashay oo 321 biib oo suuqu ku dhaqaaqay, micnaheedu waxa weeye lacag aad u tiro badan baad faa'iideysaa, lacag aad u tiro badan baad faa'iideysaa oo $10,000 baad faa'iideysaa. Okay, ilaa $3,000 meelahaas faa'iideysaa, $3,000 meelahaas faa'iideysaa waa hadaa $1 ku gashay oo 300 biib aad qaadatay. Okay, haddii aad 0.1 ku gashayna imisa faa'iideysaa? 0.1 haddii aad ku gashay imisa faa'iideysaa? Okay, 0.1 haddii aad ku galay waxaynu faa'iideynaa lacag gaaraysa $300 baynu faa'iideynaa. halkii biib waxa la inoo ku dhufanayaa $1 baa lagu dhufanayaa. Okay, marka biibiska waa isla fahanay, waa qiimaha aad ku gashay baa waxa lagu dhufanayaa biibiskaas. faa'iidadaadu intaasay noqonaysaa. Okay, ka gudub. maxaa inoo ku xigay marka biibiska? biibisku waa suuqu inta uu dhaqaaqay tiro lagu xisaabiyo oo muxuu ahaayay ku ogaanaysid suuqu meesha uu aadayo. time frame ku muxuu yahay? time frame ku waxa weeye waqtiga uu ii soconayo halkii candle. candladaas casaanka iyo cagaarka waa candle isku tagtagay oo qaybta cagaarka inay tahay bay, qaybta casaanka inay tahay sell. halkii shumac oo kamida candladaas ama casaan ha ahaado ama cagaar ha ahaado inta uu ku soconayo baa waxa la yiraahdaa time frame. time frame kana waxa laga soo saaraa kor meeshan d-du ay ku qoran tahay waa 1 day baa macnaheedu looga jeedaa. d-daas aad ku dhufanaysaa meesha 1 day ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa, marka aad ku dhufato waxa ku soo baxaya time frame kala duwan. waxa ugu yar 1 second, waxaana ugu badan 1 day, 1 week, 1 month, 1 range, 10 range, 100 range, 1000 range. Okay, inta ugu badan la isticmaalaa waxa weeye 1 day ilaa 1 week ilaa 1 month ba analyze-kaaga laga soo bilaabo. haddii aad 1 minute ku dhufato micnaheedu waxa weeye halkii shumac wuxuu ku soconayaa 1 daqiiqo. 3 minute haddii aad taabato ama 3 minute doorato halkii candle wuxuu ku soconayaa 3 daqiiqo. 5 minute haddii aad doorato halkii candle wuxuu ku soconayaa 5 daqiiqo. 15 minute saas la mid ah dhamaantood 1 hour, 2 hour, 4 hour dhamaantood time-ka aad doorato buu halkii candle ku soconayaa. Okay, ka soco marka time frame kana waa isla fahanay. time frame ku waxa weeye waqtiga ama time-ka uu soconayo halkii candle oo kamida shumacyadaas. Okay, maxaa igu xiga marka? stop loss iyo take profit. stop loss iyo take profit maxay yihiin? waa kuwaas stop loss iyo take profit. stop loss waxa weeye suuqaasa for example waxaad ka gashay tusaale ahaan suuqaasa waxa ka gashay meesha uu bayda ka aaday ugu dambaysa ee uu cagaarka ka sameeyay oo casaanku markuu dhamaaday meesha uu cagaarka ka bilaabay baa suuqa ka gashay. Okay, suuqa maadaama aad halka ka gashay waxa u samaysanaysaa wax la yiraahdo take profit iyo stop loss. take profit iyo stop loss maxay yihiin marka? Okay, horizontal line ka isoo qaad. calaamada guduudka ah baan waxaan dhiganayaa wax yar suuqa meel ka hooseysa ilaa 10 bib 20 bib waxaan ka badnayn baan halka dhiganayaa. markaan halka dhigto calaamada baan waxaan leeyahay calaamadaas waxay noqonaysaa stop loss oo suuqa bay baan u gelayaa. haddii uu suuqu baydii aanu ila suuqu uma warhayno meeshu doono aadi karaa, laakiin analyze-keena boqolkiiba 90-85 inta aan aaminsanahay buu analyze-keenu noqonayaa. intii kalena wuxuu noqonayaa waxaynan ogeyn oo meeshu doono suuqa aadi karaa. haddii suuqu meesha bayda uga gashay una baydii aadina uu aada sel meesha stop loss ka dhigatay calaamada stop loss ka dhigatay markuu soo gaaro adigoo khasaare yar galay khasaarahaadu ku xadidaya suuqu waa isjaraya automatic waa isjaraya. lambarkan calaamada buluuga meesha aan dhigana ku beegan 1.07315 ka ba waxaan gelinayaa MetaTrader 4K-ga oo mobilkayga aan kusoo degsanay application oo casharka ku xigaan ka duubayna isagana oo ku qaada dhigana isagana sida loo isticmaalo iyo sida lacagta loo geliyo take profit ka meesha la gashado, stop loss ka meesha la gashado, muxuu ahaay lot size ka meesha la geliyo. Okay, haddaba meesha aan suuqa bayda uga galay meel ka hooseysa baan waxaan dhiganayaa stop loss si haddii suuqu baydaan u galay uusan aadinuu sel aado oo khasaaraha igu xakameeyo suuqu isu jaro. Okay, take profit ku muxuu yahay marka? take profit ku waxa weeye meesha aad rabtid suuqu inuu ku gaaro suuqu inuu faa'iidada kugu jaro.
inoo soo qaad marka horizontal line-keeni. Horizontal line-keen waxaan dhiganaynaa suuqa waxaanu ka galnay halka uu bayda ka bilaabayo. Waxaanu niri halka uu hadda maraya inoo ka dhig. Halka markuu marayo suuqu faa'iidadeyda hay jiro. Maxaa u leedahay take profit-ka u dhiganaysa? Sababtoo ah suuqu weligii bay ku socon maaye wuu soo noqon karaa oo wuxuu aadi karaa sell. Sidaa darteed meel aad is leedahay suuqu uu ka soo noqonayaa ama aadan ku kalsoonayn inta suuqu wixii ka badan inuu bay ku sii noqon karo ba waxa dhiganaysa faa'iidada take profit kaaga si faa'iidadaada oo suuqu automatically isugu ka jiro lambarka ku aadsan ba take profit ka ba waxa gashanaysa MetaTrader 4 kaaga application kaaga oo ah 1.10886 1.10886 ba take profit ka dhiganaysa labada lambar suuqa hadaa gashato micnaheedu waxa weeye suuqu hadii uu halkaas faa'iidadaada kugu jiraya adiga oo intaynu soo sheegaynay 300 oo bib iyo ka badan qaatay suuqaaga ku jiraya lacag fiican faa'iiday hadii uusan aadin hoos buu wax yar u baxaya markuu halka 20 bib dhaqaaqo buu suuqii is jaraya automatically si uusan khasaare badan ku galin aan ka socono hadaba maxaa inoo ku xiga waxa inoo ku xiga lot size waxa weeye lacagta aad rabtid inaad ku gashid suuqan waxa go'aansatay waa analyze gareysay istiraatiijiyadaada oo dhan baa soo isticmaashay waqti baa gelisay stop loss kaaga samaysatay take profit kaaga samaysatay MetaTrader 4 kaaga tagtay waa application kan sharaxi doona insha Allah 10kan ka ku xiga MetaTrader 4 kaaga marka aad tagto lacagta aad rabtid suuqan inaad ku gasho baa gelinaysaa for example deposit waxa ku ahaa oo account kaaga ku jiray $500 ama $100 ama $100 account kaagu inta uu la egyahay in lot size kaagu u qalmo waa muhiim tusaale ahaan $100 baa kugu jira $100 markay kugu jirto 0.05 oo kale waa waxa ka dhiganaysa lot size waa inta aad rabto inaad market-ka aad hadda analyze gareysatay aad ku gasho inta aad ku gashay ba hadda waxa lagu dhufanayaa bibiska ayaa lagu dhufanayaa bibiska inta suuqu dhaqaaqay for example 0.05 marka ku gasho 0.5 ba halkii bib lagu dhufanayaa halkii bib 0.5 ba lagu dhufanayaa okay waa isla fahanay lot size ku waa lacagta aad rabtid market-ka aad markaa galaysid inaad ku gasho okay indicators maxay yihiin indicators ku waxa weeye tusiyayaal baa la dhahaa tusiyayaal waxa ku sheegayaan jihada oo suuqu maray suuqu ma kor buu marayaa suuqu ma hoos buu marayaa suuqu ma bay baan u gali karaa suuqa ma sell baan u gali karaa indicators waa kuwa halkaas sare ku qoran indicators waa maxay indicators ku marka indicators ku waa tusiyayaal suuqi ku tusinayaan waxa ku sheegayaan suuqu ma bay buu joogaa kor buu joogaa ma hoos buu joogaa suuqa ma fursad sela iga banaan ma fursad bay aba iga banaan maxaan suuqan u gali karaa hadda muxuu hadda fursad hadda ii banaani maxay tahay okay indicators kana inta kaga nimaadno hadaba saaxiibayaal suuqan ma adka aad buu fudud yahay qofkii fahma waqti galiya faa'iido fiican oo ku qanco oo wax badan tartabo xaqiiqatan ka sameyn kara ma adka wax aad u fudud weeye waa inta aan hadda soo sheegaynay iyo in la mid ah qofkii waqti yar galiya note samaysta waqti galiya in badan practical badan sameeya waxa weeye waa ku guuleysanaya aad buu ku guuleysanaya marka saaxiibayaal 10 ka dambeeyna insha Allah waa soo dhigaya sida suuqi loo analyze gareeyo sida entry-ga loo helo entry baan ilaawnay entry waxa weeye waa meesha aad suuqa markaa ka galaysid entry waa lot size ka waa kan ka sareeya entry muxuu yahay marka entry waa pointiga amarka suuqa ka galayso waa halka uu suuqu marayo ka galayso way okay hadaba saaxiibayaal suuqan waa fudud yahay aad buu fudud yahay hadii aad wadadii saxda ahayd oo suuqan u isticmaal lahayd hesho aad buu fudud yahay hadaan been lagu sheegin hadii aan magaranaysaa wadadii loo maray aan ahayn aan lagu marinin hadii aan lagu marin habaabin oo wadadii saxda ahayd hesho suuqan aad buu fudud yahay waana ku guuleysanaysaa marka saaxiibayaal idinkana dadaal baa idinka rabaa insha Allah aniguna waxaan aad isugu taxalluujinayaa insha Allah 10 iyo istiraatiijiyado muhiim ah inaan halka inoo soo dhigo insha Allah qof walba uu ku faa'iidi karo sidoo kale waxaan soo dhigayaa real account-ka ama account-ka real-ka ee lacagta lagu shubto sida loo furto sida lacagta loogu shubto waxa soo dhan insha Allah waa idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal 10 ku xigeentan ku kulmi doona waxaan kaga tagayaa bye bye assalamu alaykum